بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسر دواء شبكة اللي قبرته علمي ملتي ميديا إيها قبل.com إسلام مركزنا عندي كسر قد بينه برنامج واحتروا له بالشدة. برنامج كان ما أنت واحد يكوها يا شيء عجيبة وفيلا يوضع وضيعين تكهل دونتان. شيء كذا سمحت هاي والله منين أو $1 أو قبر قدونا يميت كله أو صدحات أو $1 إسلام مركزنا كعمها قان. sheekadaasi iyo qaabka u dhacday intaynaan u guda galin waxaan idin soo gudbinayaa taariikh yar oo kooban oo ku saabsan wiilka loo doonay gabadha. Magaciisu waa Mustafa Maxamed Ciise. Taariikhdiisa oo kooban ila daawada. anigu marka hore ahaan waxaan jiraa 19 sano waxaan dhashay 1989 waxaan ku koray kulay magaalada Hargeysa oo ku dhashay magaalada Barnaamij ku dhashay magaalada Hargeysa ayaan ku koray waxbarashadeedii waxaan qaatay oo kaliya elementary-ga ama dugsiga hoose sida caadiyan loo yaqaan kadib waxa ariga ugu dhacay shil aan ku galay sanadkii 2002 horaanteed bishii January ayaan jeclahay magaalada Hargeysa halkaas oo deedna aan kula kulmay in ama iga qarxay bam ama miino oo deetana aan ku waayay qaar ka mid ah xadkayga ama qayb ka mid ah xadkayga gaar ah indhaha iyo gacmaha ayaan halkaas ku waayay kadib muddo 7 sanadood kadib hadda waxa aduu jiray inaan wado waxoogaa waxbarasho laakiin marka hore waxbarashadeedii ka qaaday oo asnaanka kaga haray marka sidaas waxaan diganahay magaalada Hargeysa oo hadda ku noolahay aadina ku ahay tahay daawadayaal waxaan filayaa taariikh nololeedka Mustafa Maxamed Ciise oo ah wiilkaasi gabadha loo doonayay inaad ila daawateen. sidaad arkaysaan Mustafa waa wiil gacmala isla markaasina indhala. waxaynu eegi doonaa sheekada soo socota iyo qaabka ay u dhacday. labada nin ee indhoolaha ah ee wiilkan u doonay gabadha iyo odayga u doonteen iyo shuruudihii uu ku xidhay ayaynu eegi doonaa ila daawada. Soomaalidan waxaanu kula talinaynaa inay madaxda u dhiibtaan dadka naafada ah. taas way qofka hadduu yahay naafo si degan buu fakarayaa wuxuu ogyahay xubnahan Alle ilaahay inuu qaadan karo inuu isagu bari dhiman karo marka walaalkay imka shalayto saddexdeeda nin iyo qaar kale oo indhalo halkan aan nala fadhiin shalay gogol baanu tagnay aanu ku doonanay gabadhaas rag indhala waa ulahay wataan adoo dhowr qof baan la socdaan geedkii baanu soo fariisanay gabaatigii iyo wixii naga hor imanay fartaa lulaya annagoo hebel ka socona oo kooxdaas ah waxaanu doonaynaa gogashan u fadhinaa gabadha hebel la yiraahdo waxaanu doonaynaa Mustafa Maxamed Ciise Mustafa Indhoole gacmihii iyo lugihiisii hadalka u sheegay miina guysin waxa afhayeen oo abwaankan caanka ah ee xigmadihiisa aan inta lagu soo koobayn oo aan anagu ku xiisayno walbahaarka jacaylkii warlaanta indhool marka dadka asagu warlaan in indhoolayaashu inay war laayihiin dad badan baa ku dacniya asaga qof jacayl hayo dhan ayuun baa war loo dhamaadkii iyo mustaqbalkii wana garanay gabadhiina hadalku ku daalay markaan u geed fariisanay waxa la yiri horta ninku waa nin goba waa nin raga waa nin dhalinyaro ah anse waxaan codsanaynaa ma orno ninkii da gabadhi u shaqaynay يا عاوم بدنا وباهيها لبا يردنا إن الصيو يا حكون ورانا يسينا إن لو بلن قاضي لأنه ندور ياسين نمك كرتيسان كرنا ما ينمي هذا حصاري وين مكرنا بني ليش هذا حصاري سين وحنا نرمح مورت لبا يرد يد وحي قبل دي مرين كذي مرشدي دي قري دي وحدي قلنا ندور ياش وحنا بلن قاضي وانا مرت حالي يردنا نبحنا أنسين دقبياشة أنا أقول بس حافظ دوادك سنينه يا إن أنت حدي بحيان أما إن ولا لو تشيرون فيه أنا ممكن دول بان هاي ما كعيا مسخوشان قال يا سيرفس كي وصل السنة يا شغلة يدو قصنا حقي قعميو يسوونه بيا هدي وحفلتك بيا ويسكيرين يا صوتها تدنيه سيلا ومش وكف سنة يترو وسرورنا مرك عليه كل حال وحال إذا ما ممكن ده الله سوق الله يروح لكي أما الله بدي يرد بحيان فرت التاسع حنا عصنا هنا إن هرتنا قلنا قيب قاطع ونيكاس ترى رجعني ما حكينا يسامع جرتو دليل عند كم قروح بدنا عندنا كم قبوينا أسحبني هي مقنع أي شروط أنا وحري أنا قلنا هذا ولا ليه سنة ولا ما أنت نقرب شو الناس حافظنا وصوب لنا تاس وحنا لا وتاس ندخل ونلا قيب صدورنا بإذن الله تبارك وتعالى
waa tahay daawadayaal waxaan filayaa sheekadaasi inaad ka hesheen islamarkaasina aada indhihiina ku daawateen. waxaa jiri doonaa barnaamijyo taxano ah islamarkaasina aan idinku soo qaadan doono sheekooyin qaabkan oo kale ah. sheekadana dabcan weli may dhammaanin, waa taxane. waxaan ka samayn doonaa ilaa iyo 5 qaybood oo kale ayaynu ka samayn doonaa Mr. Saciid iyo labada nin ee kale. barnaamijyadaasina waxaan filayaa inaad ku xidhnaan doontaan islamarkaasina aad daawan doontaan. barnaamijkeena intaasaan kusoo koobaya. intaynu barnaamijka xiga ku kulmayno waxaa idinkaga tegaya sidaas iyo salaamullaahi calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.